Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada our next videogeeni labaad FX Somali review ama Forex Somali review. Waad ku mahadsantihiin daawashada videogan mar labaad iyo mar saddexaad. Subax wanaagsan inta subax u tahay inta habeen wanaagsan. Insha Allah taala aan ku bilaabo reviewgi daily insha Allah USD Canadian haddii aan fiirno dailyga waxaad arki kartaa head left shoulder right shoulder. So in this area inuu yahay left shoulderka xagiga xigo, in this area right shoulderka inuu yahay. So up to here qorigaas buu ka bixiyay balse right inuu hadda uu yara ixtiraamay baad u malaysaa oo hoos u soo socdo ilaa areadan oo imaan doono. So haddii 4 saac ay idiin soo dhaweeyo 4 saac marka waxaad arki kartaa haddii qorigan ilaa qorigan aad isku xirto oo down trade maadaama uu qiimaha laga soo riday 1.3385 oona ku soo degay 1.29400 up to 500 pips ku dhawaad uu soo dhacay inuu muxuu ahay qiimihii kor u yar laabto soo laabto. So adiga markaa uma tiid qofkii halkaas ka soo galay halkaan uga baxay balse short trader baan anay dhammaantiin ama daily trade swing trade. So insha Allah taala hadda waxaad aragtaa areadan calaamadeeyay right shoulderki waa kana. So up to here baan intaan baan ku sugayay si limitkiisa up to here 1.319 balse waa u soo laabtay. insha Allah waxaan rajeynaa inuu up to here imaado up to areas 1.306 after that inuu ku laabto areadan u taabto 1.316. In this area if you will see bully set up, please check and be careful. iska hubi kana taxadir insha Allah taala. After that qiimihii wuxuu soo noqon doonaa mid hoos soo dhaco ilaa uu imaado 1.296 balse si fudud kuma imaan doono doolarkii dagaal badan baa socdo. taxadir. aan u tago oilka oo previous video aan ku sharaxnay casharkeenii hore kaasoo aan dhahnay haddii qiimaha inta areadan sell waad ku sugi kartaa sell limit areadanna buy limit waad ku sugi kartaa. So in qiimihii uu soo dhacay shalay markii aniga xaggayga halka saac iyo ilaa galabkii ay ahayd qiimihii waa uu soo dhacay. soo ma jeedin buy limitkayga oo ii furay aniga 66.23 ilaa 20 areas buu igu furay loss buu igeliyay laakiin alxamdulillah 40 pips 50 pips areadaas loss buu ahay balse alxamdulillah xogaha fiican ilaa 190 pips baa loss ka dhigtay. laakiin alxamdulillah waxaad aragtaa in qiimihii 66.20 oo buy limitkii aan dhiganay in qiimihii hadda uu marayo 67.45 oo aan ku jirno 125 pips profit. So insha Allah waa kana falaarti in qiimihii ilaa areadan la keeni doono ama intuu cuskan doono then kor loo qaadi doono ilaa up to 70 inuu inta gaaro in inta marka la taabsiyo 68.27 areas inuu trainka qabsado kadibna uu furo habeen dambe tomorrow waxaa jiro news baa u jiro oilka. So be careful insha Allah isagana goldii aan fiirino isagana oo aan ka hadalnay casharkeenii hore. So goldiga waxaan dhahnay waa kana qiimihii kor buu u socday kor baan sugeynay balse qiimihii wax kan dhal cagaaran kuma jiro. waxaad aragtay in goldigii dhulka buu soo galay dhicitaankiisa waa uu soo jebiyay support areadii balse trainka haddii aad si fiican iskugu xirto here up to here haddaad isku xirto waxaad aragtaa training inuu xoogaa yara cuskaday balse correction yar buu sameynaya. dadkii ka faa'iidaystay 1191 waan arkayay mar balse waa yar sugaya mar kale waxaan sugayay inuu ii caddeeyo saaka markaan soo kacayna waa qiimihii waxaan arkay up to here 30 ilaa 40 pips socdo balse waan rajeynaya inuu mar kale meelaan kusoo laabto aan ka faa'iidaysano up to here 1204 or 23
ilaa 90 pips 80 pips 100 pips ka qabano after that uu usoo dhammaystiro 11880 inuu usoo dhammaystiro dailyga insha allahu tacaala si clear baan oo arki kartaa dailyga inuu 1180 imaan doono insha allahu tacaala correction buu samayn doonaa maadaama uu soo jebiyey support area so next signal aan checkinno euro USD gold intaas baa uga baxaya euro USD dailygii waa kana ilaa hadda waan sugeynaa weli maana trade gareynin baas waan sugayaa faa'iidadeedana kan waa ku jiraaba already 16 video hore baan ku sharaxnay eridan baan kasoo galay ilaa hadda waan ku jiraa 15989 areas 92 baan kasoo galay ilaa hadda waan ku jiraa balse waan rajeynaya faa'iideeda ilaa inta inaan ka qaato insha allah 1.13 balse waxaan rajeynayaa another trade inaan meelaha ka gaado oo short ah oo area markuu imaado oo aan another trade aan ka gaado short so be careful afarta saacadaan ku fiirino weli wax dhaqaaq ma lahan meel maanta qof uu ka geli karana ma joogo waayo waxaad ku dhex jirtaa support area iyo resistance area baa ku dhex jirtaa so labada meel baa la aadi doonaa marka so risk aa qaadanayso aad buu u badan yahay ma garatay aad iyo aad buu u badan yahay news baa jiro after 3 hours 2 hours 3 hours insha allah inuu qiimahan newska uu si fiican GDP-ga si fiican noogu caddeeyo warkiisa so aan fiirino next signal pound USD intaas baan uga baxaya euro USD aan fiirino euro USD videogiina hore aad iyo aad buu u ixtiraamay waan sugaynaa inuu qiimaha oo kor u kaco ilaa poundka maanta news baa jiro oo naga siiyo profit fiican qofkii meelahan ka gala aad iyo aad buu u fiican tahay losskiisa areadan oo kale buu taalaa ma ka dheero waxay ka taalaa oo kale ilaa 40 ilaa 30 ilaa 50 pips baa u taalo so waayo wuxuu galay meel uu kalsooni uu ku qabo oo riskigiisa uusan badnayn haddii uu soo jebiyo markaas buu riski gelayaa balse insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inuu qiimaha pound kor u kaco afarta saac haddaa idinkugu soo dhaweeya aa idinka qaado on aa idinkaga qaadaba qiimahan aa idinkaga qaadaba waad aragtaan si clear baa u aragtaan in qiimihii uu qoriga uu ka yara tuurtay laakiin uu ku jiro nasiino uu ku jiro soo ma jeedin waa afarta saac waxaad aragtaa shalay ilaa maanta inuu ku jiro nasiino uu sugayo qiimaha maanta ilaa caawa inuu meel u dhaco inuu jibiyo iyo inuu kor u socdo laakiin waxaan rajeynaya insha allah inuu kor aado sida elite wave-keena ku cad 1 2 usha saddexaad waatana usha afraad inuu gaaro waan rajeynaa 1.2914 ilaa 10 areas inuu gaaro waan rajeynaa haddii halka saac oo kale aan fiirino pound USD waad aragtaa in qiimihii uu ku jiro nasiino uu ku jiro soo ma jeedin markaan kale inuu eridan imaado qofkii eridan oo kale imaado newskana positive uu soo baxo insha allahu tacaala abto eridan waa rajeynaa 1.2844 1.28 ilaa 1.279 ama eridas after that oo qiimihii uu sameeyo wax yar degitaan after that insha allahu tacaala qiimihii inuu u dhammaystiro 1.2918 ilaa 10 ilaa 14 inuu dhammaystiro waan rajeynaynaa insha allahu tacaala pound USD isagana waa sidaas haddii aan fiirno pound Australian waad aragtaa qiimihii inuu meel fiican joogo so area resistance fiican buu joogaa sababtuna wax kale maaha waan eridan fiiriya qorigan siduu ugu taabtay iyo siduu uga kacay haddana wuu taagan yahay maxaad aragtaa inverted hammer baad aragtaa haddana doji inuu sameeyo suurtagal 40 saac hadda 30 daqiiqa baa ka dhiman insha allah 40 saac inuu complete uu ku sameeyo after that 1 hour ilaa 1 hour and a half kadib 1 hour waxaa la furi doonaa suuqii London oo dheerto la xiri doonaa soo qiimaha aad buu u dhaqaaqi doonaa euroga poundka lacagaha aad buu u dhaqaaqi doonaa markii la furo xagga London waa suurtagal in qiimihii kor u kaco
waa suurtagal ilaa eridaas uu tago kadib uu si fiican usoo dego haddii kalena inuu inta ka dego insha allahu tacaala balse aniga cell limit baa inta ii taalo cell limit eridaas 1.780 baan ka dhigtay soo haddana 52 buu marayaa risk rewardkeygana waa 1.7626 haddii qiimihii uu kasoo dhex baxana waa looskaaga waa iska xiraysaa insha allahu tacaala intaaba la gaarinba eridaas ma garatay so insha allah good luck baa idin rajeynayaa pounds weeyaan isagana euro new zealand isagana aan fiirino euroda maanta news fiican baa u jiro euro new zealandka haddii aan fiirino isbuuc yare waa soo bandhignay telegramka alpha stream somali online trader waa kusoo bandhignay qiimihii waxaad aragtaa eridan baa kasoo gala aniga 62 areas baa kasoo gala ilaa haddana waa ku jira profitkeygana waxaan rajeynayaa after 25 ilaa 30 pips inaan ka qabto marba uu soo dhawaaday laakiin waa u kacay waan rajeynaya inuu imaado then qiimihii kor loo qaado ma garateen euro new zealand isagana waa sidaas waxaa suurtagala in qiimihii hadda sidaan ah inuu sidaan uga soo dhexbaxo newska eridaas imaado eridaas markuu imaado oo zaid uga soo dhexbaxo after that correction uu sameeyo oo resistance ka dhigto then uu usoo dhamaystiro dhinacan waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala in qiimihii uu sidaan saxda ah oo aan ku sawiranba sawirka hore oo telegramka aan kusoo dirnay inuu noqdo then uu kor u baxo laakiin insha allahu tacaala anyway wait newska sug muxuu ahaa suuqa newsyada soo baxaya sug wax walba ay saameyn doonaan insha allahu tacaala fully set up area haddaa ka aragto waa fiicanta hadduu soo jibiyeyna sug ilaa uu kaa tuso muxuu ahaa signal saxan ama jiha saxan direction saxan ilaa uu kaa tuso sug aan fiirino new zealand USD aan fiirino isagana insha allahu tacaala oo ka mid ahay signaladii aan soo bandhignay previous video kusoo bandhignay waxaan ku galnay in qiimahan haddii intuu cuskado oo cishto signal fiican laga arko in qofkii uu galo insha allahu tacaala buy set up ama bully set up so waxaad aragtaa in qiimihii elite waveka 1 2 3 4 5 inuu dhamaystiray balse si toos hadda director uma aadayo wuxuu sameynayaa nasiino buu sameyn doonaa eridan buu tegi doonaa wuu soo laaban doonaa nasiino kadib inuu ka dhex baxo waa suurtagal oo hoos u jibiyo ama kor usoo yara kaco laakiin insha allah time badan bay qadanaysaa waa laakiin waa short wey aniga eridan baan ka galay 0.6581 areas baan ka galay ilaa hadda waxaan ka haya 20 pips waxaan rajeynayaa profitka inaan inta ka qaato insha allahu tacaala eridaas 0.6685 ilaa 7 inaan iska dhamaystiro waan rajeynayaa insha allahu tacaala waa 100 pips laakiin waqti bay qaadan doonaa sabar maantana intaas baan kusoo gabeynayaa insha allahu tacaala muraajacada dheyliga ama maanta suuqa insha allahu tacaala waad ku mahadsan tahay daawashada videogan subscribe like share and commentigiina waa inoo muhiim insha allahu tacaala sidii dadku wax u rabaan waa inaan ogaanaa iyo faa'iidaysiga insha allahu tacaala aad iyo aad u baahsantiin PK Report waa anigoo ah sikriye ku magac dheer xardaawi thank you a lot of asxaabta asalaamu calaykum